كون أدون هاي نمانكي أبوري عادنا بحول قلي ولا يدنا مني إذن كو أقولي ururka haldoor ayaa waxa uu astaan ka dhigtay waan rumayn karnaa rajadeena balse waxa ay ku istaahilaan inay ku asteysnaadaan waan idinka lacagaysan karnaa sababtoo ah astaantan waxay ku mutaysteen lacagaha faraha badan ee habka bini'aadanimo lagu soo ururinayo qurbajoogta ka damqanaysa darxumada iyo baahiyooyinka nololeed ee ku gadaama dadkooda beerlaxawsiga iyo ilmo been ah ayaa ay la hor istaagaan qurbajoogta ka xun horumar la'aanta ku habsatay waddankooda maxuma qurbajoogtu inay lacag bixiso laakiin taxumi waxa weeye in ay ka fiirsan waayeen cidda ay ku aaminayaan deeqaha lacageed ee ay ugu talagaleen inay ku maalgeliyaan horumarada ka socda waddankooda haddaba hantilusayaasha haldoor waxa ay si faakahaysi ah ugu raaxaystaan lacagaha nidaamka bini'aadanimo uga soo urursadeen qurbajoogta reer somalilan waxaana tusaale kugu filan casho sharafta iyo qida sharafta aan xadka lahayn ee ay maalin kasta iyo habeen kaste ay u qabtaan shakhsiyad ay ku sheegaan inay yihiin dad ixtiraam ka mudan waxaana moodaa in ay hamuun u qabaan casho sharaf oo ay ilaaween mas-uuliyaddii ay isku igmadeen kadib markay arkeen lacagaha faraha badan ee gacantooda soo galay haddaba shabakada caalamiga ah ee hormood news waxay si cad idinku soo bandhigaysaa caddaymaha musuqmaasuqa iyo been abuurka ay ku kacayaan madaxda ururka haldoor waata koowaade waxaad nala eegtaan caddaymaha sida aan horay idinku soo sheegnay ururka haldoor ayaa waxa uu shaaciyey inuu dhisayo dhismaha dugsiga farsamada gacanta ee maxamed mooge lacagta dhismaha dugsiga farsamada gacanta ayaa waxa gebi ahaanba bixiyey qurbajooga degmooyinka maxamuud haybe iyo maxamed mooge ee magaalada hargeysa haddaba waxaa wax laga xumaada ah inuu ururka haldoor u isticmaalay lacag dhan $5,000 soo dhoweynta guddoomiyaha lacagtaasi oo qayb ka ahayd lacagtii loogu talagalay dhismaha dugsiga farsamada gacanta arrintani ayaa waxa ay niyad jab ku tahay qurbajooga bixiyey lacagta dhismaha dugsiga farsamada gacanta iyo bahda jecel horumarka fari kama qodna burburka hantida ummadda sidoo kale lacag ku dhow $5,000 ayaa isna lagu soo dhoweeyey agaasimaha ururkaasi haldoor deeq cismaan dhinaca kale waxaad nala eegtaan ninka ku suntan been abuuraha ugu weyn ururka haldoor waa deeq cismaan oo ah agaasimaha ururka haldoor waxaana uu meelo kala duwan uu ka sheegay qiimaha lacagta ay ku baxayso dugsiga farsamada gacanta qiimahaas ayaa runtii aad uga badan qiimaha iminka ay yidhaahdeen waxay ku baxaysaa dugsiga farsamada gacanta haldoor wuxuu doonayaa inuu fuliyo mashruuc ay ku kacayso $514,800 waynu garanay mar kale iyo madal kale oo muddo badan ka soo wareegtay isla markaana uu ka sheegayo lacagtan oo kale wadka bulshada tabaalaysan ururka haldoor wuxuu doonayaa inuu fuliyo mashruuc ay ku kacayso lacag dhan $500,000 farsamada gacantu sideen wada ognahay waxa la yiri khiyaanaluhu isaga istabra sababtoo ah deeq cismaan waxa uu been ka sheegay qiimaha ay shirkadda albaraka ay kula heshiisay oo ahaa $270,000 isaguna ku sheegay inuu qiimahaasi ahaa $700,000 waxaana shirkadda albaraka si cadhada uga jawaabtay been abuurka laga sameeyay kuna sheegtay oo warbaahinta qaar ku daabacday beenta laga sameeyay qiimuhuna uu ahaa $270,000 khiyaanole waa istabra
waa tahay waxa xaqiiqo ah oo aan been ahayn inay ururka haldoor heshiis hore ula galeen shirkadda dhismaha ee albaraka oo heshiis rasmi ah oo labada dhinacba ay ku sheegtay shirkadda albaraka $270,000 inuu ku kacayo dhismahani haddaba waxaa isweydiin leh maxaa ay qiimahan u jaban u qaadan waayeen oo qiimaha $500,000 ugu ordayaan shakilaan waa mid ay ku raadsanayaan lacag badan oo ay lunsadaan waa ay wadeen waana ay ka fikireen sidii ay hanti badan uga faa'iidi lahaayeen oo ay u noqotay halkii ay doonayeenna waa ay uga soo baxday wararku waxay intaa ku darayaan in gudoomiyaha ururka haldoor iyo shirkadda najax ay heshiis wada gaadheen heshiiska ayaa gebi ahaanba waxa uu dhignaa in gebi ahaanba mashruuca dhismaha dugsiga farsamada gacanta loo gacan geliyo shirkadda alnajax qandaraaska shirkadda alnajax ay ku qiimaysay dhismaha dugsiga farsamada gacanta ayaa waxa ay sheegtay inuu ku kacayo lacag dhan $360,000 haddaba qandaraaska shirkadda alnajax ayaa ka badan qandaraaskii hore ee shirkadda albaraka waxa ay tahay sababta uu gudoomiye asad ugu qancay mashruuca shirkadda alnajax wararku waxay intaa ku darayaan in ay shirkadda alnajax u ballan qaaday gudoomiye asad in haddii mashruuca uu siiyo shirkadda alnajax ay u dhisi doonto dhismaha guri fiilla ah oo asad yeesho waxaana halkaa lagu asturayaa $90,000 oo loo qaadan doono faakahaysi iyo guriga dhisasho aan isla dul istaagno waa maxay waxaan oo raaxlayn ah ee alnajax u samaynayso gudoomiyaha ururka haldoor haddii shirkad la siiyo qandaraas waa ay fushataa mana gasho howlo kale oo ay ku buumuurinayso cidda u egmatay dhismahan islamarkaana waa ta aad ka dareemayso inay ku shuraakoobeen khiyaanada bal waxaad la egtaan gudoomiyaha shirkadda alnajax construction company Abdiraxmaan oo guludeen aan caadi ahayn u samaynaya gudoomiyaha ururka haldoor midhu ma ku dar la ducaa wadankan wuxuu u baahan yahay 300 asad oo ninkaas oo kala uu u baahan yahay isagoo nin yara waartaan mashaariicda uu fulinayo iskuulka ay dhagax dhigeen intuu leegay baad ogtahay iyo sida uu isaga ururkiisu u habaysan yihiin ay wax u qabanayaan haddaba waxaan ka taabano shakhsigan waadka u amaanaya gudoomiyaha shirkadda alnajax gudoomiyaha ururka haldoor Asad Yuusuf Cismaan ayaa ah shakhsi ku saaqiday kuna guuldaraystay wadanka gudihiisa isla markaana sanadka markuu 2007 ayaa uu Addis Ababa dhoofay wadanka Mareykanka waxaana uu 9 sano ku maqnaa wadankaasi shaqo uu lacag badan ka helo muuhayn isla markaana waxa uu hayay shaqooyinka nooca heerka caadiga ah isla markaasina waxaan tiya kuma laha wadanka gudihiisa waxaana muddo yar ka hor ay xubno ka tirsan ururka haldoor ay ku sunteen gudoomiyaha ururka haldoor iyagoo isla waxa la qadarinaya magaca nin Mareykanka jooga ayaa ay u doonteen xilkaasi shakhsi aan u qalmin oo moodaya in xilka wax lagu cuno gudoomiyahan ayaan ahayn shakhsi aan ku suntanayn amba taariikh wanaagsan ku lahayn bulshada reer Soomaaliland waxaana shirkadda alnajax ka saacidaysa sidii uu u yeelan lahaa hanti filawa ayaa ku habsaday mas'uuliyiinta hoggaanka ururka la baxay haldoor filawagaas ayaa ahay inay aamini waayeen lacagaha faraha badan ee soo galay maadaama aanay lacagahaasi hore u soo gelin waxaana uu mid kasta uu ula cararay inuu ku qabsado wixii ku weynaa markaasi agtiisa mid ku guursada oo agaasimaha ururka haldoor deeq ayaa waxa uu khasnada ururka kala baxay lacag ugu fadhiistay gabadh oo aad u fara badnayd haddaba markaan ka hadlayno cidda wax qaban kartaa cidda ay tahay waa shakhsiyadda aanay baahi u hayn lacag daacadna ka ah hawsha loo igmaday runtiina waxaa halkaasi ka cad in aanay ahayn dadkeedii maqnaa ee ay yihiin dadkeedii ku maqnaa ee hantidiina ku socda shabakadda caalamiga ee Hormone News waxay ku talinaysaa caano daatay dabadood la qabay islamarkaana waa in dad aan baahi u qabin lacag gacanta loo geliya dhamaystirka dhismaha dugsiga farsamada gacanta